munaasabadani waxay ahayd mid aqoon-yahan wariye qoraa halabuur Amran Maxamed Axmed ay ku shaacinaysay inay u taagan tahay tartanka xildhibaanimada baarlamaanka Somaliland ee ka qabsoomi doona wadankaasi sanadka 2017. waxgaradkii aqoon-yahankii ka soo qayb galay kulankan ayaa Amran ku tilmaamay inay tahay shakhsiyad u qalanta wax badan oo ku soo kordhin karta haddii loo doorto xilkan xildhibaanimo. Amran anigu uma arko inay tuulo yar ka timi ama region kaliya ka timi waxay runtii matashaa Somaliland oo dhan. waxaan rajaynayaa inay dumar badan soo jiidato oo baarlamaanka soo galaan waayo dumarka qabyaalada ku yar naxariista ku badan xushoodka ku badan naxariistuna way ku badan tahay dumarka way naga wanaagsan yihiin waxa weeye waqti waliba wuxuu leeyahay calaamadihiisa laakiin diinteenu min al-asaas taariikhda islaamka marka aad raacdo from the start bilowgii gabdhuhu qayb bay ka ahaayeen. Amran Maxamed Axmed baan garanayaa haddii alla gaadhsiiyona aan aad iyo aad ugu rajo weynahay wax badan oo loo bogo wax badan oo yani la hadal hayo wax badan oo aayatiin la biidni illaahi tacaala in ay magaranaysaa geyn doonto golahaas. marwo Amran Maxamed Axmed waxaan ku leeyahay ku soo dhawow hankaaga iyo dadnimadaada aqoonta waxgarashada aad u leedahay dalkan anigu intii aan joogay intii aan ka bartay hore isumaynaan aqoonne waxa xaggayga aad ka tahay qof qaaliya waxaan ku rajo weynahay inaad ka soo bixi doonto hanka maanta halka hadii beedinkeeda leeyahay aad ictiqaaday aad tiri waxaan noqonayaa baarlamaanka waxaan kuugu ducaynayaa ilaahay hanka aad qaaday inuu kugu guuleeyo halka aad doonaysa aad gaadho. waxaan oran lahaa Somaliland ha doorato kullay anuguna waan soo talaabi doonaa insha Allah waan taageerayaa doorashada wax baan ku leeyahay marka waxaan leeyahay hala doorto waa daacad waa qoraa waa gabayaa waa hal abuur wax walba waa ay tahay waxaan rabi lahaa in la doorto Amran oo 30 sanadood ee u dambeysay ka shaqeynaysay wadamada Yurub iyo Carabaha kuna guuleysatay jaysooyin caalami ah kana dhex muuqanaysay mar walba bulshooyinka ay la nooshahay ayaa sheegtay in xilligan la gaaray xilligii ay kartideeda aqoonteeda iyo waayaragnimadeeda qotada dheer ay uga faa'iideyn lahayd wadankeeda Somaliland kuna dadaali lahayd sidii loo heli lahaa sinaan iyo cadaalad in haatan iyo daryeeyigaygan siyaasiga ah imaka soo curtay Finland kolbaan isku day laakiin haddana waxaan arkay inaanay ii munaasib ahayn laakiin hadda waxaan goostay inaan wadankeeni aan hadii Allah siyaasadiisa ka qayb qaato sababta wadankeena haddaan cadaalad lahayn waxba la heli maayo dumar baan wax loo ogolayn dhalinyaro wax loo ogolayn war wadanka rag waxa ay soo halgameen gobonimada qaado guuleystay salka dabada hadhigan oo dadka risq ah ogolaadaan oo dhalinyarada risq ah ogolaadaan waxaan qofka bini'aadamka shucuurta ku uuman ee inuu noqdo qof wadaniya ما هبدات حسبي وداني ما كان كهذا لكن وداني لماذا شعورت قف بني آدم كأمن ما أنتن إلا يو intermediate كمان أنتن كبحي إن ماذا حلك عي أيه هاد ما أنتن لا كورسن ما يشيرون علمي قحشة داره أنقول لي قتعلين تونجي جو ذيجي كورسن ما يشيرون ودنا كي جنكري معدنا أنك قبل ورشده هي اللي يركسوا قرده واتقرس وقت يثوروا دلالتيو ما ركت حماسة عين كهاي دائما كواحد وهي قربة كل ده قربة وقتي وكنت لكن وحن سلا أنت وقتك كهذا dadka waxaad la qaban karto la qabo haduu khayr noo leeyahay khayr dadka u yahayna insha Allah wala heli hadii kan wax ka khayr badan ba alla keeni dadka la u keeni wassalaamu alaykum wa rahmatullahi dhamaantiin Allah idin sharfo. Amran waxay noqonaysaa musharaxadii ugu horeysay ee si rasmi ah ugu dhawaaqda inay u taagan tahay tartanka xildhibaanimo ee wadankaasi Somaliland marka la eego dhanka haweenka gaar ahaan wadamada qurbaha. Maxamed Tiriig Hon Cable TV London.